waxaa guud ahaanba maanta oo taariikhdu tahay 19 bisha lixaad 2021 dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland laga fariistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe. haddaba telefishinka caalamiga ee FT Somali TV ayaa ururnimadii hore ee saaka waxa uu booqday dugsiga Mujaahid Qulle Aadan Secondary School kaasoo ogaanay sida uu ugu socdo imtixaanka shahaadiga ee fasalada afraad ardayda ku jirta dugsiga Mujaahid Qulle Aadan Secondary School oo ka mid ah dugsiyada kaalinta wax ku oolka ugu jira wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland. isla goobtaasina waxaanu kula kulannay supervisorka goobtaasi u qaabilsan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland Saciid Gaas Aadan waxaanu noogu warbixiyey sida ardaydu imtixaanka ay goobtaasi ugu socdo iyo tirada ku galaysa isla iskuulkaasi imtixaanka shahaadiga ee fasalada afraad. Saciid Gaas Aadan waxaa hadaladiisii ka mid ahaa alxamdulillahi rabbil caalamiin. magacaygu waa Saciid Gaas, gudoomiyaha goobta Qulle Aadan Secondary School. waa iskuul ka mid ah iskuullada public-ka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa. waa goobta waxaa loo bilaabmay saaka oo ay bishu tahay 11 bishii lixaad 2021 imtixaankii shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka dugsiyada afraad ee jamhuuriyadda Soomaaliland. ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa environment-kan iyo deegaankan fiican ubadkaygu saaka imtixaanka ku galayaan. guud ahaan haddaan ka warramo goobtan waxaa ku gelayaa almost 7 iskuul oo daafaha kala duwan magaalada. waxaan ku gelayaa ilaa tiro ka badan 200 arday. staff members ka shaqeynaya serviceka Soomaaliya waa 40 ku dhow yihiin ama dhowr iyo 30. waxaa ka mid ah deegaanka wadarka deegaankiisa alxamdulilah waa aad bay degan yihiin. waxaan hadda labaad u celinaa waalidka ardaydan ku soo tabcay oo runtii cooperation-koodu iyo ilbaxnimo sanadba sanad ka dambeeya uu ka muuqdo. aad baan mahad celinaynaa. saaka iyo sanadii hore in badan oo imtixaanaadka soo qaadanay runtii dadkii waxaa ka muuqda ilbaxnimo. waxaa ka muuqata dadkii in ay waaye arkeen marka environment-kuna waa okay alxamdulillahi rabbil caalamiin. waxaa kale oo iyadana xusud mudan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo runtii gelisay effort aad u weyn in ardaydu si stability oo service-koodu dhammaystiran yahay imtixaanka iyo jawi deganaana u diyaarsay. waxaa kaloo halkan uga mahad celinayaa runtii human machine waa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka oo intaa Soomaaliland ay jirtay xafiiskan gudoomiye ka ahaa. maasha Allah waa nin daacada يعني التيم كذا حفظ كم امتحانات كل مرة أنت سمال اللي عشرتي إلهي من واسطري. المحاضرة أول كخبر هذا أول هذا العلاقة الامتحان كي هو شهادي هاي سنة كي هو امتحان بالدكتورين. الحمد لله هو سؤال عدو وناكسن. لابد بيان شو معلومتي وزارة البرشاد وتشتنا حفظ كم امتحانات كلها كلا قاطع. أنت سؤال اللي عشرتها سوبرفايزر بناها يعني بدل ما تلك كمية كسوق هذا كي وجرى عابق كوفيد 19 إن كستوى كلفتي officially ودمانن وما قاعدين قام إن determination كلاي أرتيبها وعيقلتها تمام من عيقوا كسرت وما سكين وسيتها أرتيبي ودارك دونتها إن شاء الله ودوام كل عبودنا وعيقلتها نسكم على نكرو عفمات كانت بريورتي وكلاد ولا سيو مركا الويتشرتي وانشوفي سنة كل هوري وآجو أتكينا خمتو آج نوكا لعب سنة معنى الروتي خرش بدن وقال وآجو آجو بالعرن وآجو نحن شوفي تكسيجي إن أرفتون هالان في السكندري سكول سنة كل هوري معنى waxyaabihii maxay dhisafatadka ahaa in la isticmaalay keliya
ayaa kharashkooda badnaa runtii investmentska wasaaradda waxbarashada bixinaysay ardayda siinaysay staff memberskeeda bixinaysay marka arrintu alxamdulilah ilaahay haddii uu inaga dulqaado adduunyada kulley marka recovery bay soo samaynaysaa oo fiican yahay haddana kamaanaan tanaasulin oo de nabadii sheegada waxa ugu qaalisan ilaahay subxaana watacaala dhisay waa ubad marka ubadkii haddana caafimaadkooda ugu jiraayo waa ka taxadiraynaa oo maasiska iyo baraarujintii habkiisa oo socotaa laakiin imika ardaydu sidoodii hore u galayaan imtixaankooda caadiga ay galayaan lixdooda cishay qaadanayaan 10 subject bay qaadanayaan markaa sida normalkaabaan u qaadanayna imika cabdikariim ciise cabdullaahi cabdikariim staji wararka telefishinka caalamiga iftiin Soomaali TV dugsiga mujaahid qulaada secondary school ee magaalada Hargeysa